munaasabadan tacsiid ahayd oo ay soo agaasimeen bahda sports-ka bersamaadkii ayaa waxa lagu maamuusayay isla markaana lagu xusayay haliyeeyo dhanka markaasi ciyaaraha kala gedisan iyagu ku soo jiray oo geeriyooday waxaana munaasabada soo agaasimay ciyaartoydii hore ee bersamaadkii dalka soo martay iyadoo lagu maamuusayay macallimiinta kala ah macallin Cumar oo ka tirsanaa kooxdii Badroolka macallin Cabdullaahi Basquale oo ahaa macallinkii kooxdii kubadda cagta wuxuu xulka qaranka dalka Soomaaliya iyo marxuumad Faadimo Aways Fay Aways oo iyana ka tirsanay ciyaartoydii kooxdii kubadda kolayga ee Jeenyo dhammaanba dadkii munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyay taariikhdii iyo waxqabadkii ay markaa lahaayeen saddexda marxuum ee dhawaan iyagu markaa ku kala geeriyooday magaalada Muqdisho iyo sidoo kale magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya waxaana dhammaanba dadka halkaasi ka hadlay ay sheegeen muhiimadda gaarka ah ee markaa u leedahay isu imaatin noocan oo kale in la xusuusto dadkii ama bahdii hore iyagu markaa ku soo dhex jiray noocyada kala duwan ee isboortiga dalka Soomaaliya maclimadda xulka kubadda kolayga ee dalka Soomaaliya qaybta hablaha Sucaad Cabdullaahi Galow ayaa dareenkeeda ka hadashay iyadoo ka sheekaysay marxuumadaasi Faadimo Aways oo iyadu ka tirsanayd kooxdii kubadda kolayga ee gabdhaha LLBB Jeenyo inkastoo iyadu markaa ay u ciyaareysay kooxdii horseed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Faadimo Aways Maxamed waxay ahayd gabadh aad u akhlaaq fiican dadaal badan spirit badan marar badanna annaga horseedaha naga nixin jirtay ahayd ciyaartoy aad u fiican kubadda soo qaada waxa lagu xasuustaa akhlaaq waxa lagu xasuustaa deganaansho iyo ciyaar wanaag ay ka muujin jirtay garoomada Faadimo waxay ciyaaraha ka bilowday inay u ciyaarto gobolka Banaadir waxay sidoo kale ku biirtay naadiga heerka koobaad ee Somali Tax ama Balcad waxay markaana u soo wareegtay naadiga Kenya LLBB Faadimo waxay ahayd qof aad u shakhsi fiican iskuna dayday markii dagaaladii iyo dhibaatooyinkii burbureen inay gabdhaha kubadda kolayga Soomaaliyeed kor u qaado gabdho badan oo hadda garoomada si fiican looga yaqaanana ay soo tababartay marka waxaan u tiraynaa tacsi tiiraanya leh haddaanuna bahweynta kubadda kolayga gabdhaha Soomaaliyeed iyo xiriirka kubadda kolayga iyo intii ciyaaraheeda jeclay insha Allah waxaan ku dadaalaynaa Faadimo Aways Maxamed inaanan ilaabin ay markasta ku jirto qalbigayga iyo qulubtayada sadaqa fiican u bixin insha Allah ta'ala wax badan ayaan ka xasuustaa Faadimo ma ahayn ciyaartoy ma aragtay la ilaabi karo waxay gabdhihii soo qaadi jiray kubadda soo gaarsiin jiray mulki ciyaarihii ugu dambeeyay waxa la bilaabay in la tiriyo dhibcaha gabar kasta ay tirinayso iyo kooxuhu markastana waxaan isaga horiman jiray madax iyo madax xagga dhibcaha mulki nuur muuday anagoo maalinba mid ma aragtay ama 50 ama 40 ama 30 ay dhalin jirtay marka waxaan ku xasuustaa waxay ahayd qofta kubadda soo qaada ama gaarka loo yaqaano ama qaybiyaha ee mulkiisa baasaska fiican soo ma ilaabi karo qofan ilaabi karo ma aha waxay nagu ahayd ma aragtay qofka kaliya ee marka anaga challenge-ka ama nagu haysay inay siiso fursado qaaliya oo ay mulki ku dhaliso iskoorada qaarkeed ay noogu kormari jireen واتين ugu dambeyntii hadda Faadimo Allah naxariisto way geeriyootay in badan waxay kala shaqeynaysaa sida markaa ugu aan xaadirba u ahaa tartamada kala gedisan ee gabdhaha markaa qaarkood tartankii ugu dambeeyay lagu qabtay magaalada Garowe markaa qayb ay ka ahayd waxa tahay macallimadii xulka kubadda kolayga ee gabdhaha dalka Soomaaliya maxaad ku xusuusan doontaan marka loo eego Faadimo Aways hadii aad tihiin xulkii kubadda kolayga dalka Faadimo Aways sanadkii 20 iyo 16 waxa ay ahayd tababarihii Hirshabeelle runtii anigu markaa waxaan joogay Washington DC laakiin waxa aan keenay project-ga waxaan ku xasuusanayaa horta Faadimo waa laga qaaday inay tababarto state-ka anigu tala galay laakiin maadaama ay wax gabadhina maamulayso gabadhina ay tababarayso gabadhina ay ciyaarayso waanu ku celinay because qof kaga haboona Faadimo Aways Maxamed ma ay jirin waxyaalihii ugu dambeeyay waqtigii fiicnaan aan isla qaadanay saad u joogto waa markii aanu joognay Garowe teamkeeduna ay yimaadeen ma aragtay finalka inay gobolka Banaadir la ciyaaraan qof la xasuusi qof taariikh aad u tiro badan la weeye marka qof la ilaabi karo ma aha waxay macallimiin fiican gabdhaha ay soo saartay qaar kamid ah waxay ku jiraan qaranka hadda ay mulkina tababaraha ka tahay aniguna aan ku kormaamulo marka u malayn maayo inay noqon doonto Faadimo Aways Maxamed qof aanu ilaabi karno akhlaaq haday tahay ciyaar wanaag haday tahay iyo inay soo saarto ubaxa berrita midalitoona dalka Soomaaliyeed insha Allah si kastaba aatee munaasabadan dhanka tacsiida ee markaa loo sameeyay saddex haliyay ee qaybaha isboortiga dalkeena Soomaaliya macallin Cumar oo Badroolka ka tirsanaa macallin Basquale oo kooxdii kubadda cagta ee markaasi waxool iyo macallimad Fay Aways oo kooxda LLBB ahayd ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan iyadoo loo duceeyay in bahdaasi geeriyootay Allah samri iimaan bulshada Soomaaliyeed ee dhanka isboortiga ka siiyo